gobollada tan bari nugaal iyo mudug annagoo sool iyo sanad afkooda oo ku hadlayna saddex masalo midunaynu noqono saddex masalo midunaynu noqono iyo naxbas u dhuundhuumani meel la wada leeyahay harti leeyahay oo daarood leeyahay soomaali leedahay oo aynu taladeeda ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir iyo khayraadkeeda aynuu gudboonahay meel aynu ku kala tagno si cad soomaalidu inaynagu ogaato aynu ku kala tagno oo layna ogaado inaynu kala guuro gobollada iyo deegaanada iyada idna nooga baxdaan anana aynu ka soo guuro aynu halka aynu kusku macasalaamin ama aanu somaliland ama aanu maamulka samaysano ama aanu sidaa ku jirnay inaynu kala guuro inaynu isku dilo garowe ilaa magaalo madaxaynu wada samaysano wada dhisano dhaqaalaheeda iyo adduunkeeda iyo wax kastoo galay waynaga dhexeeyaa meelay yimidugu isimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer puntland oo majeerteen iyo saasaan ku sugaynaa waxaa raacda dhulbaanta waxa uu matala madaxweyne axmed ciidni cismaan axmed karaash baa matala meel kastaba ha joogo madaxweyne guudna waa madaxweyne gaar ku-xigeenna wuuya laakiin beesha awood qaybsiga siciid harti ayuu ku fadhiyaa haddii sidii dhooba daarad xoog loola yimaado ku kala maqnaan mayno wixii dhinta iyo wixii dhaawacma iyo wixii wax gaaraan sidii walaalkan warsangare ka yeeli mayno oo walla ah inaanan ka yeelin garowe waynu wada naallaa guryaheena iyo xoolaheena kuwa yaal bixin shishadaynu ka marraa sokadaad ka soo martaan waynu wada degannahay waxaanu ku baaqaynaa oo leenahay oo ku celcelinaynaa war walaalayaal isku keendirinee oo yayna isdilin oo yaan cadow nagu wiirsan oo yaynan kala dhiman oo yaan wixii hore oo aadna badeen oo gobolka sool aad badeen iyo sanaag mar labaad wax kaloo aadna badeen yeeli jirin badida markaan ka hadlay waxa gacangelintii aad u gacangeliseen maamulka somaliland gobolka sool aad u gacangeliseen maalin meel uga guurtay waad ogne sidaa ku hari mayno kuna dhiman mayno haddayna dilin waxaanu ku baaqaynaa war waxaa la yidhi hadhuub dhiman iyo hadhuub buuxa haddii la isku dhufto horta keebaa qubta hadhuubka buuxaa qubta war garow iyo lascaanood baa weynay oo lascaanood baa qurux badnay oo lascaanood baa ballanay maantana waad aragtaan garowe inay la mata london ciise maxamed waxaa lagu baaqaya islaan ciise war garow ayaan ninaan ka tegayaa beri yuu talin beri markuu ku dhibaato dhex dhiga yuu talin hadduu ka tegayo taladeeda waa wadaagnaa dhaqaalaheeda waa wadaagnaa dhaqankeeda waa wadaagnaa dhiiggeeda waa wadaagnaa isku dhiig baynu nahay axmed cilmiyuu muuqandari den hadduu madaxweyne ka yahay meesha waa ka madaxweyne ku-xigeen wuxuu ka galaanu ka galnaa hadduuna kaafiyo waayo annaga noo taallaa iyo baarlamaanka meesha noogu jira markaasana waa iyo kor isugu gudba laakiin hadduuna kaafiyo kana kaafiya mana eryi kartaan loomana codayn karo baarlamaan lacag la siiyaa nama khuseeyo halkaasaanu ka eegaynaa maantana waad ogtiin wax walba waxay naga dhexeeyey hore noo dhexeeyey waad ogtiin yaa wixii wax inoo raacay puntlandna wada leeyahay iyo puntland ku kala tagno dalka iska day dalka waynu wadaagnaa idinba waa iman kartaan kan haddaa kan bixisan kiinuma bixisan laakiin ama waynu wada yeelayna waa ku kala tegaynaa xaqiiqdu saa weeye axmedna hadduu xiyo hadduu seenar beeshir annagaa dooranay oo idinkaa nala doortay madaxweyne ku-xigeen booskii madaxweyne ku-xigeen buu noo fadhiyaa wuu noo joogaa wasiir aanu ansixin oo dhulbaantii lama qaadananaba wasiir dhulbaanto aanu ansixin isagu ilaa meesha noo mama qaadanano maxaanu qaadanayna tani wasiirada ha magacaabo majaarteen bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim waa nabaadina xidhkayga adoo tic raacaya ragga diinta hoyga u ah iyo hadal dhulbahanta ah adoo masalada tic raacaya looda nabaadina xidhka dhiganaya halka waxaanu ku shiraynaa asxaabadda ku qabanaynaa beelweynta dhulbahante waxaanu ka hadlaynaa arrimaha puntland ka taagan maanta baanu ka hadlaynaa sidaa asxaabigeena ka sheekeeyey puntland waa hal aynu wada lahayn hashaa waynu qalannay hilbaheedaynu qaybsannay miserfere kuriskii baad qaadateen anna garbahaan qaatay
hartiga kalena inta kale u qaybsada kuriskiina weli hartiga kale oo idinku haysta ma aydan arag hartiga kale baa waxaad ku haysataan hilbahoodii caqligaasi horta caqli saliim ah maaha maalin walba cabdilaahi yuusuf dabadii wiil yar baad noo keenayseen waxaa ugu daaweynaa caddana wuxuu sameeyey waa noogeen intaa waxaanu ugu dulqaadanaynay cadkayagii garbaha aan lahayn baad kuriskiina doonaysa inaad ku darsataan maanta waanu diidnay waxaanuna halka u nimi maanta oo saxaafadda u qabanaynaa 48 saacadood baanu dani u qabanaynaa mujeerteenka kale annagu eeduma haysano laakiin isimada iyo waxgaradka iyo oqaashoodu wiilasha yaryar maalin walba ay noo keenaan yidhaahdaan madaxweyne ka dhiga oo sharciga ku tumanaya oo wuxuu doona ku samaynaya beelihii daawada puntland dhistay baad ka qaban weydeen saasaad isimada iyo oqaasha iyo waxgaradka mujeerteenadii kiis ku leeyahay laakiin annagu madaxin dadweynaha waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu bahantannahay annagu waxba kuma lihin hadallada sharafteedu waxay ku jirtaa xabadda masakiyo dawiish nagala tegay sheemo iyo laan shanqashiga colaadda baa waqay sharaf ka dheefaa intaan shaal hagoogtaan raashiiska ii diran xilaahay wuxuu ku dalaaqan yahay labaa qabaaladooda waxay uga dalaaqan yahay 48 saacadood baanu u qabanaynaa demi maslaxaad maanta uma jeedno kana wada hadli mayno maalin walba waxaynu ku wada hadlayna tagada annagu aanu leenahay war dastuur baa inaga dhexeeya kaayada madaxweyne ku-xigeenka dastuurka qodobadiisuu leeyahay isna qodobadiisuu leeyahay ma waxaa caqliga kaagana agtaa saaraya kaygana waa isticmaalayaa ma suuroobayso 48 saacadood ismada waa maqashiinaynaa mujeerteen oqaasha waa maqashiinaynaa waxgaradka waa maqashiinaynaa mutacalimiinta waanu maqashiinaynaa haddaan dani xilka kaga teginaysa casilin garowa waxaan dhiigu sida daadka u rogmali ma jirte wadahadal maanta aynu gelayno maslaxada aynu kala yeelanayno waayo annagoo dhibaato daraawiishayda xoreyno idinka laftigiina baad waxaad doontaan nagula kacdeen waa mujeerteenow qabsada wiilka yarkaa kuwa yaree soo dhaadhamada yareen kamaanu yeelin war kan qabsada maanta xilkana ka dejiya ninaynu u dhannahay oo reer puntland oo aynu ku aamino tagada baa la geynayaa hadalka intaasaan kaga baxay waa bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 20 sano waa baryanay baryadaba ma hadhin 20 sano waanu baryanay waxaanu lahayn war waxa qoloo waxbay leedahay inoo daaye reerahaasi waa diideen reer hibeelo hartiga ka midi marka waxa weeyaan haddii ninku aad waaniso oo diido jawaabta uu leeyahay baa la siiyaa axmed garaash waa nin biyihii reer binu quraysheeda waa nin biyihii reer binu haashina waa nin biyihii caqiil binu daaliba waa nin biyihii jabartiya waa nin siidalkii daarooda waa nin siidalkii hartiya waa nin siciid hartiya waa nin susheere habarwaaya weeyaan meel dambe horta nin fadhiya maaha waxa weeyaan ninowna ha isku dayin cadka siciid harti leeyahay inaad cunto haddaba ninaad ka cuni kartaana idin lama joogo axmed garaash madaxweyne ku-xigeen baa lagu sheegayaa 120 madaxweyne weeye oo 120 madaxweyne weeye ninay hoo joogi weyde oo joogsan weyde wuxuu yiri ninkii gooyaalbaa la qaatay haddaan qayl la kala goosan geydhaa la maalay haddaan geelo la horseexan gaadiid cadhoolaha haddaan caynka lagu gejin aabbahay gabay noqoy haddaan nabadi guuyo ilaahay nabadku waxaan ku gar axmed garaash ninuu yahay inuu muuqdaa intaa waanu xishoon anagu reer dagaal baaba nala yidhaahdaa reer dagaal taagan baaba nala yidhaahdaa nabadda ma rabno
nabadda dooni mayno xaaladda maanta taagan oo axmed garaash lagu hayana kuwa ka miciis qaadanaya maahin kuwa dhabarka lagu sidana allah ka dhigay caloosha kuwa ku jira waa ogyihin xaaladda axmed garaash lagu hayo mana ka duudsi qaadanano puntland waa burburtay dastuurkeedii waa la bedelay dad baa ku tuntay wax qaybteedii waa la isku xaqiray waa la isu aqoonsan waayey iyada intaasaan kaga baxay waxaan daba joogaa 3 eray oo ay puntland ku dhisan tahay oo aan leeyahay ilaa aan la soo noqdo inaanan wax qayb dambe aanan ka gelin lambar 1 nugaal waxa la yidhaahdo nugaal marka aan ku heshiino nin waliba inta uu ka leeyahay baynu wax ku wada qaybsanaynaa anagu dastuur dambe wax ku qaybsan mayno waa lambar 1 magaca darwiishna waa raba oo ma leh lagama leh darwiish anaa leh dib dambena uguma abtirsan karo nin ka soo jeeda beesha ma jeerteen darwiish anaa leh 3 midda kale waa xadka weye halka uu deni ku raaxaysto oo axmed garaash leeyahay ka wahayn kufurtu billaahi waa la isugu tegaya amar baana la isugu tegaya waana xadka dhulbaante nin walowbana ogow waa la isugu tegaya waxna lagu qaybsan maayo ilaa daartaa la isugu tago wax dambe oo la qaybsanaya ma jirto go'aanna waxaan ku ridaynaa oo aanu isku raacsannahay 100 wiil baa ku filan garow way faa'irtay waa dheregtay waxay noqotay meel lagu raaxaysto 100 wiil gaajaysan baa adeerto caleego haddaad moodeen inaanu wax weyn u soo dirayno 100 baa ku filan 100 aanu xulay oo aanu go'aankeeda ku jiro oo aanu naftooda iyo maalkoodaba rabin oo aanu taariikh kala baxno waddan wiil magaca kula soo noqon sool iyo sanaag iyo cayninka yidhina sool iyo sanaag iyo cayna dib dambe maca federaal uga dulqaadan mayno inay noqdaan meel lagu gorgortamo aan dastuurka ku jirin hadalladan odhan lahayo raggii horaa yidhi axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante ma aha ku xigeen annagu madaxweyne loo yahay madaxweyne ma ridi karo qabiilo kuma soo xadgudbi karto xadka aad leedihiin soo dhaafinina inkastoo dadkaas ee dumarka kala gudbaya ay idinku jiraan waxaan leeyahay ninkii la odhan jiray maxamuud cali shire hadalkiisii baa muuqda markaan in yar ka gaadho waxaa u yimi garaadka dhulbaante iyo boqorka majeerteen garaadkii dhulbaantuu salaamay war maxay ku dhacday buu yidhi wuxuu nina hooyaa ii keentay nina aabbaa ii keenay anigu nin baqaya mehi ilaahay baan ka baqayaa garowana waa imanayaa ballanna waxaan ku qaadayaa haddaan qaladka lee kala joojin oo dadku istixgelin oo ninka uu nin waliba shaqadiisa uusan garan ballan waxaan ku qaadaa garowe waa inay garowe dhismaan baan ballan ku qaadayaa haddaan raggii rabbi ka waayin war hooy markii horena dowladdii hore idinkaa mucaaradkooda ugu horreeyey kanna idinkaa mucaaraday mucaaradkiina aad dadka aad dowladaha mucaaradaysaan oo madaxweyneyaasha aad mucaaradaysaan annagu waa ka yaabanahay marka horeyse deni wuxuu yidhi somalilan puntland federaalku puntland buuhoodle iyo cayn iyo baran somalilan baa laga fidiyey oo loo gacan dhaafay annaguna waxaan u naqaan ay puntland ama meel daarood ama meel harti uu harti ka taliyo madaxweynayaasha marba madaxweynaha soo qabanayay weli madaxweyne ku hadla yidhaahda somalilan baa ka talisa buuhoodle iyo cayn maanta ka horta waa maqan iyo baran waxa weeye dagaal baaba ka dhacay deni waa maqnaa lama maayo de isagu waxa weeye meel buu ku maqnaa iyo inuu dhakhtar ku jiray ma garanayo markii lagu dagaalamay malaayiinka qof ku dhimatay oo 2 sanadood oo dhow lagu dagaalamayay dee waxaan mayaa deni ma joogin
inuu hurdo dhakhtar ku maraaban maayo taasi waa taa marka baaqyadii hore uun gudaba jooga baaq waxaan u diraynaa ma jeerteen haddaad kula socotaanna maxamed hartiyow haddaad kula socotaan danina waa mahadsantihiin wuxuu yidhi haddii saa la yeelana waa alxamdulilah haddii la waayana waa rabbilcaalamiin haddii aadi kula soconna sidii uu garaadku markii dhaweyd sheegay 48 saac jawaabtiinna aanu hello taasi waa tama jeerteen dalkan ka hadlaya meesha daaruhu ku yaaliin sarahan dhaadheer ee mukayfku ku xidhan yahay iyo dhalooyinku waa meeshu ina cabdulla xasan lahaa dhulbahanta ku dhammaado lahaa dooxadii garoowe wixii nalagu dooxaayey waxay duub caddaydii wadhnayd bixin duleedkeeda may waxa yaala lafahayagii halka daaruhu ka dhisan yihiin haddii xabadii dhacdana dhulbahantaana leh taasi waa taa waxa timi ta dawladda haddii nidaam la waayo iyo sharci wax wada dhisashada soomaaliya oo dhan baa og inaynu wax wada dhisannay innagoo soo istira axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante annaga isagaa madaxweyne nooca ninkuu doona isagaa bedelaya ninkuu doonana isagaa keenaya dani madaxweyne annaga doonooma ahee waxbaan isku darsanna haddii sharci la waayo annaga oo dhulbahanta isagoo keligiisu harti geela ka dhaca oo riyo uga tegi wallaahi waxaanan uga tegayn daara aanan ka dhigayn gawaan waxa la yidhi bakaylo haddaan koodud kugu xumay aniga kadaloobiguma xuma annaga waxaanu dhowranaaba ma jirto haddii aydin nabadgelyada dan idinku jirin iyo wada dhalashada iyo tulliimada iyo wax wadaaggu dee annina dani nooguma jirto